kulanti wanaagsan dhammaantiin akhyaarta sharafta leh kusoo dhawaada Afmeer TV iyo warar degdeg ah oo naga soo gaaray wadanka Soomaalida ee Itoobiya gumaysto goday qabri dahar dhagax buur fiiq wardheer jiga wararkan degdeg ah waxay sheegayaan in xabadu si toos ah ay uga socoto dhammaan goobaha aan soo sheegnay oo isku hayaan ciidamada new booliska iyo ciidamada gumaysiga Itoobiya oo ay horay uga mid ahaayeen sidoo kale shacabka ayaa la soo baxay calankooda iyo calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya soo dhawaada dhammaantiin waayahay raali ahaada soo dhawaada dhammaantiin waxaan guda galaynaa xaaladda culus oo ka socda dalkii ayaan guda galaynaa xabadoo si toos ah aan dhawaqeeda u dhageysanayna xilligan xaadirka ka socota magaalada Jigjiga iyo gaarkeeda oo ciidamada Itoobiya si warku nagu soo gaarayaan ay dhinaca harar u jahaysteen ayaan guda galaynaa soo dhawaada okay soo dhawaada dhammaantiin kan la cabdi ilay waa tuuga markuu ahaa markii hore Soomaalida la socon Raa Cabdiraxmaan tuuga markuu ahaa Soomaalida la socon cabdi ilay 20 sano ugu dambeeyay crowd looga bax meesha bal wuxuu ka hadlay dhigeyso 20 sano kaba u soo wada dadka la xasuuqay markaas ku leeyahay cabdi ilay tuuga yahay hadda ay ku soo sheegay ma noo sheegaysaa dabal ilay faxoonka okay soo dhawaada dhammaantiin kulanti wanaagsan dhammaantiin soo dhawaada akhyaarta sharafta leh waan idinka raali gelinayaa waan xabeebsanahay waa subax sabti ah akhyaaray waxayna soo gaadhay warar degdeg ah oo naga soo gaadhay magaalada goday qabri dahare dhagax buur shay goosh wardheer qalaafe dhuxun iimay iyo magaalada shilaabo sidoo kale fiiq wararkaas oo dhan waxay sheegayaan in dadku banaanka ay taagan yihiin ay wataan calanka Jamhuuriyadda Federaalka iyo calanka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya saaka xilli hore markay ahayd waxaa kulan galay maamulkii cabdi ilay iyagoo shiraya oo shir u fadhiya magaalada waxaa soo galay ciidamada Federaalka Itoobiya lagu sheego oo xarumihii ama airportka ama hoolkii sayidka goobta lagu magacaabo iyo goobtii ay baarlamaankoodu ay fadhiisan jireen maamulka cabdi ilay la wareegay
ogaada hadda markaa maamulka cabdi ilayna wuu shiraya. waxaa soo gelaya waa ciidanka Ethiopia oo ay ka tirsanaayeen. dadkii markay ka war heleen arrintaas magaaladii Jigjiga oo dhan baa gilgilatay, waa la isu soo baxay. dhammaan shacabka magaalada Jigjiga siday warku nagu soo gaarayaan oo aan sawirada ka arkaysaan calanka Jamhuuriyadda Federaalka ay ruuxayaan. sidoo kale waxay gubayaan calanka Ethiopia. isla markiiba siday warku nagu soo gaarayaan ciidanka new booliska oo ka tirsanaa ciidanka Ethiopia ayaa ka hortagay ciidanka federaalka. xabad xoog leh ayaa ka bilaabatay airportka. isla markiiba way ka saareen hoolkii sayidka iyo baarlamaankiiba. waxaa la isula dhaadhacay dhinaca Garab Case. waa isla ciidanka Ethiopia islaynaya new booliski iyo federaalki. xerada Garab Case kaliya ayay ku harsan yihiin xilligan xaadirka ah, halkaas oo iyadana la sheegayo in xabaddu ayna qoriga afkiisa ka bixin. sidoo kale ciidamada new booliska oo ka tirsanaa ciidanka Ethiopia ayaa u jahaystay dhinaca magaalada Harar oo ay u carareen qaybo ka mid ah ciidanka Ethiopia ee Jigjiga la wareegay saaka. magaalada Dhagaxbuur dhammaan waxaa dabka la geliyay xeriyihii ciidanka, waxaa laga gurtay wixii ilay. halkaa waxaa isku hor fadhiya qaybo ka hadhaa oo ciidanka Ethiopia ka tirsan iyo shacabka magaalada Dhagaxbuur. magaalada Goday aan horta u noqdo magaalada Jigjiga, 3 xero 3 saldhig oo military oo ku tiilay. waxaan haynaa muuqaaladii iyadoo dadku ay si toos ah u bililaqaysanayaan xeryaha ciidanka gumaysiga Ethiopia. khiyaaray warkeenu kuma saabsana Cabdi Ilay iyo kooxdiisa midna kuma salaysna. xaqaa'iqa jira ee dhabta ayaa ka hadlayna. magaalada magaalada Jigjiga 3 saldhig oo magaalada Jigjiga 3 saldhig oo ay lahaayeen militariga Ethiopia waxaa la wareegay shacabka magaalada Jigjiga. dhammaan agabkii ilay ciidan oo dogtiin gumaysiga Ethiopia in halka hub badan u yilay waxaa la wareegay shacabka. 3 saldhig markay dadkii la wareegeen iyo hoolashii hoolkii sayidka garoonka diyaaradaha Jigjiga iyo baarlamaanka sheega halku fariisan jiray maamulkaas. intaa markii la wareegay ay la wareegeen shacabka waxaa loo jahaystay xerada Garab Case oo isku urursadeen ciidamadii gumaysiga Ethiopia. intaas markay dhacday isla markiiba magaalada Goday iyadana waxa ka bilowday kacdoon lamida kacdoonka Jigjiga. waxaa lala wareegay 2 saldhig u fiirsada, 2 saldhig oo ku yiilay magaalada Goday. 2 saldhig ayay la wareegay shacabkii magaalada Goday. dhammaan agabkii yiilay ka qaateen, waxayna wataan calanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo calanka jabhadda ONLF. arrintu waxay maraysaa meel adag bay maraysaa. maamulkii gumaysiga u shaqeynayay iyo gumaysigii way isku fashilmeen, way isla shiidayaan. halkaas waxaa soo baxay shacabkii oo dhinaca oo leh shidaalkanaga lama guran karayo, shidaalkanaga cid qaadan karta male. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Mareykanka wuxuu ka yidhi 5% bay leeyihiin, 5% bay Soomaalidu leedahay buu yidhi shidaalka. shacabka waxaad moodaa marka waxaa taabatay gumaysi nooc cusuba oo abaabulkiisa u socdo oo ku wajahan dhulka Soomaaliyeed. qof kastoo Soomaaliya waxaa waajib ku ah inuu taageero u muujiyo. haddaba magaalada Goday 2 saldhig baa lala wareegay. hal goob ayay kaga harsan yihiin magaalada Goday oo la sheegay dhinaca airportka inay isugu tageen. xabaduna way dhacaysaa, waa inaad ogaataan. dadka shacabka ah isla markiiba waxay isu habeeyeen qaab abaabulan oo ay kaga hortagayaan in nooc cusub oo gumaysiya inuu dalka soo galo. waxaan kala qaadaynaa 2 arrimood, arrinta maamulka Cabdi Ilay iyo waxaan kala qaadaynaa shacabka. innaga shacabka ayaynu nahay, shacabka rabitaankooda aynu ku soconnaa. shacabka maanta waxay caddeeyeen Jigjiga, Qabridahan iyo Goday iyo Dhagaxbuur dhammaantood waxay caddeeyeen wardheer inay dad Soomaaliya yihiin, inay calanka Soomaaliyeed ee buluuga uu yahay calankooda dhabta. waxaa ugu dambeysay magaalada Jigjiga calanka buluuga oo lagu arko 77 baa ugu dambeysay. arrintu halkaasay maraysaa. maamulkii u shaqeynayay gumaysiga iyo ciidamadii gumaysiga dagaal baa dhex maray. shacabkuna codkooda ayay dhiibanayaan iyagoo la dooni mayna Ethiopia ma qaadan karta shidaalkanaga. haddaba
halkaas ayaa khiyaaray maraysaa barnaamijkan gaadhsiiya bulshada sheergalay qof kastoo Soomaaliya inuu arko weeyaan halka ay wax marayaan goorweedo magaalada Jigjiga aan la hadlaynay waxaan iska maqli weynay qofkii aan la hadlayay dhawaqa xabadda ayaan iska maqli weynay ka dhacaysa xabadda markaan weydiiyeen xabaddan waa maxay waxay yiraahdeen xabaddu waa xabad dhoolatus ah oo mataqaana ay ugu goodinayaan mataqaana qolihii ay la shaqeynayeen soo markii hore ay soo weeraray laakiin xilliga xaadirkaas ay sheegeen magaalada Jigjiga ciidan is hor fadhiyo xabadda isku ridaya ma jiro ciidamadii Ethiopia siday wararku ay nagu soo gaarayaan waxay u jahaysteen dhinaca Harar magaalada maartay ayay u jahaysteen arrintan marka ay isku fashilmeen kuwii Ethiopia la shaqeynayay iyo kuwii maartay lahaa Ethiopia la wareegnay oo qabsanay waxa weeyaan isu tuur bay noqonaysaa sidaad ogtihiin xurguf weyn ayaa ka dhaxaysay Soomaalida iyo Oromada ay abuureen TPLF arrintan waxay caawinaysaa marka in ay hal dhinac ay caawinayaan marka xukunka Abiy Ahmed saasay u ekaanaysaa halka arrintaas saasay u ekaanaysaa shidaalka Soomaaliyeed shidaalka ku jira gobolka Soomaaliyeed Ethiopia gumaysato 5% buu Soomaaligu leeyahay aqli maskaxda ka shaqeysiya loo baahan yahay haddaadan aqli lahayn maskaxdu mashiin ay ku shaqeynaysaa ma haysanaysid haddaba qof kastoo Soomaaliya waxaa looga baahan yahay maanta inuu taageero jabhada ONLF inuu taageero arrintu meel halis ay maraysaa wariyaha Soomaaliya ay tagaysaa arrintu maalin dhow shacabka Jigjiga iyo gobolkaas waxay cadeeyeen inay u taagan yihiin Soomaalinimo ayay maanta cadeeyeen 77 ayaa ugu dambeysay in calanka laga taago dhulka in si dhab ah ay calanka buluuga ah ay dadku si xor u yiraan kanaan leeyahay ki Ethiopian ay gubaan wararka kale ee la soo gaaray waxay sheegayaan magaalada Jigjiga in kooxdii Cabdiilay wali ay ku sugan yihiin halkaana aad aragteen muuqaala iska duubayaan inagu waxaan arrinta ka nahay shacabka ayaan markasta inaan qarin shacabka rabitaankooda waa inaan cadeyno wey Ethiopia way gumaystaa dalka Soomaaliyeed raalina kama noqonayno inay ku soo duusho wax raali laga noqon kara ma aha wax raali laga noqon kara Ethiopia iyo gumaysi cusub ma aha shidaalka Soomaali baa leh Ethiopia ma leh maamulka Oromada waxaad moodaa hadday sidan ku socdaan yacni arrintu ay meel xun tagayso laba arrin bay noqonaysaa in ciidankaas ay shacabka islaynayaan iyo kooxda new booliska oo iyagu taageeraya Cabdiilay in ay cid kala amar siisay haddii laga soo amray xafiiska Abiy Ahmed oo Abiy Ahmed uu yidhi hala weeraro maamulkii halka ugu jiray Ethiopia oo ay macnaha si u dhacday ka fashilantay waxa weeyaan way u dhamaanaysaa xukunkiisa way u dhamaanaysaa xukunkiisa haddii nimankii Tigreega ahaa oo wali ciidamada ku dhex jira iyo saraakiil kale hadday fuliyeen oo arrinta fuliyeenna waa anada way dhinac uga dabaalan karaya haddii ay u daleeyihiin Cabdi Maxamed Cumar iyo maamulkii halka uga jiray intay dir Addis Ababa ka yimid weygii hore halkaasay ku qabsan kareen marka waxay cadeynaysaa arrintu inay Cabdiilay kooxdiisa ka guda weyn tahay oo loo socdo shidaalka iyo dalka Soomaaliyeed in la doonayo nidaam ay doonayaan oo nidaam dabaqoodhi cusub ah inay nidaam cusub oo dabadhilif ay ka dhistaan meesha ay doonayaan laakiin maamulka halka uga jiray iyagu budgetka siiyaan ciidamada iyagu mushaarka siiyaan ina qaabka u wajahaan waxay fashil ku noqonaysaa maamulka hadda ka jira Addis Ababa haddii ay ugu talagaleen in ayna ugu talagelin saan hore usoo sheegay oo ay arrintani ahayd in Cabdiilay kooxdiisa ay koox ciidamada ah oo aan ka amar qaadan Abiy Ahmed haddii ay jiraan iyadana waa case kala way arrin kala way laakiin labada qodob bay u kala baxaysaa in Ethiopia ay burburtay oo nin walba meeshu doono uu qabsanayo bilaa qaysanayo in amarkan uu toos soo bixiyay Abiy Ahmed uu yiri hala soo qabto Cabdiilay kooxdiisa maamul cusubna ii geeyo Jigjiga maamul cusub Jigjiga ii geeya iyo dalka Soomaaliyeed shidaalkana waa la soo baxaya oo fiirsada
عندي باور له ولا أركي دورا نكاس عندي باور له ولا أركي دورا حالي ما بدنا لنا دور سنو جنبه هاي نقول كصومالي بعله لما جميسن كريو لما أنا أدوس كرو شدال كنا هل ترى ما قادن كرتا ما أنت وحندي عدينا هل كعدينا يا إن شعب كصومالية دياري هلول كيسين الدفاع إنه مدي هاي مد ويسقدر إثيوبيا ويسقدر إثيوبيا كوي دلين بماشي كبوحة كوضا صار يا سبريس واي هاي marka halkaas ay akhyaaray maraysaa hadii aan ku celiyo saaka aroornimadii hore maamulka Cabdi Ilay oo shiraya ayay ciidamo federaalka Itoobiya wax lagu sheegay oo Abasiiliyaana ayaa soo galay Jigjiga garoonka diyaaradaha ay la wareegeen baarlamaankii maamulkaas halka uga arriminayay iyaga la socday dabaqoodhiga habay la wareegeen hoolasha shirarka ay ku qabsanayeen bay la wareegeen wadooyinkii bay la wareegeen inta markay dhacday waxaa dhacay ciidamadii iyaga ka tirsanaa ay iyagu abuureen new booliska iyo iyagii baa islaayay waad garatay Soomaa shacabkii magaalada oo maqlay in shidaalka Soomaaliyeed halka ku jira ay la soo baxayaan maamulkan cusub ee Itoobiya hadda ka arrimiya markii la yiri Soomaalidu 5% bay shidaalka ku leedahay ayaa horta shacabka kicisay ee shacabka Cabdi Ilay u mudaharaadaya maaha Cabdi Ilay maamulka halka ka jiray shacab u mudaharaadaya maaha Soomaali waxay maqashay shidaalkan 5% baad leedihiin war 5% ana iskala shidaalka seed ku yeelan kartaa adigoo daraad xoroobay oo 300 oo sano lagu gumaysanay taa waa inaad ogaataan marka maanta arintu way culus tahay fashilkii ugu weynaa ayuuna dhex fadhiyaa Abiy Ahmed fashilkii ugu weynaa buu dhex fadhiyaa laakiin waxaan ogaanaynaa ciidamadiisu markay dadka xabad ku furaan shacabka ee hal ruux oo shacab dilaan markaasaan ogaanaynaa inuu fikirkii Abasiiliya wato iyo inuu san wadan oo dimuqraadiyadu sheegay uu wato markaasaan ogaanaynaa Soomaaligu nasiisaba cidna ma bariyaba qofka Soomaaliga ah kuwa hadda meeshan ku jiraan u maleeyaa inay qoladiisa yihiin Soomaalidu cidna ma barido waa taqaanaan cid Soomaaligu ma daba fadhiisto kuwii cadcadaaba la daba fadhiisan way sawa waa mid madow oo kabala waa mid madow oo kabala oo Afrikaana cidna ma daba fadhiisanayso haddaba arintii halkaas ay maraysaa waxaa la sugayay xilligan in wada hadal dhaco in Ethiopia wax la yiraahdo isbedeshay in qolo waliba xaqeeda ay ku doonato si nabadgelyo laakiin xilligan in ay fawdo cusub ka abuuraan taliska cusub ay hogaaminayaan qoladan Abiy Ahmed haddii ay fawdo abuuraan oo ay rabaan gumaysiga Ethiopia noociisii oo kale in Soomaalida lagu sii wado may u shaqeynaysaa marka waxaan idin cadaynaynaa magaalada Jigjiga calankii buluuga ahaa in maanta laga taagay uu ka babanay maaha Cabdi Ilay kooxdiisa waxa ka taagay maaha ciidan iyo booliska maaha waxa weeye waa shacabka Soomaaliyeed ayaa wata calanka lamana qasbi karo taa waa inaad ogaataan waad garatay Soomaa shidaalka Soomaaliyeedna lama bixi karaan Tigray baa la bixi karo waay kuwa ka tabaryar maxaad u malaynaysaa marka waaye halka ku soo qora qofka Soomaaliga ee diyaar u ah shidaalka in ay dhoofsadaan nimankan hadda xukunka qabsaday yaa diyaar u ah Soomaaliya in shidaalka ay Ethiopia wax la yiraahdo qaadato qof Soomaali diyaar u ah ma jira idil soo dhaw waa ku salaamayaa dhamaantii soo dhawaada shacabka Oromada waa shacab daris Soomaalida la ah waa shacab loo baahan yahay nabad in lagu wada noolaado taas markasta waa ku celcelinaynaa Oromo Soomaalida waxay leeyihiin xuduud aad u dheer waxaan ku baaqaynaa in nabad laguna noolaado Soomaali dhulka Oromada nabadgeliyo Ethiopia Soomaha hadday xukunkeeda
ay hadda nidaamka ay taageersan yihiin hadda Ethiopia waxaanay la timid marka Soomaaligii bay yidhaheen boqolkiiba 5 baad leedahay shidaalkii boqolkiiba 5% 5 مش معقول war Soomaalida dhulkeeda waa la qabsaday yaa la hadlay oo weydiiyay afti sideed ku qodanaysaa joogitaankaaga sharci darro aad dhulka joogto dalka Soomaaliyeed qabsatay joogitaanka aad joogtaaba sharci darro sideed marka shidaalkaad ka hadlaysaa waa maxay waa in wada hadal yimaado oo laga wada hadlo war Ethiopia meesha maxaad joogtaan Soomaalida la weydiiyo dhinacay ku qanacsan yihiin inay dalkoodii Soomaaliya ay ku beerayaan inay gooni u istaagayaan waa in la weydiiyaa laakiin ana waxa tahay ana ku sheegaya oo shidaalkaaga iyo khayraadkaagiina waan guranayaa horta Soomaali baan anagu nalooma dal socon karayo waana idin sheegayaa shidaalka qof kasta oo Soomaaliya ba difaacaya qof kasta oo Soomaaliya ayaa difaacaya wixii maanta ka bilowda waa inaad ogaataa taas waayahay waxaan dib ugu noqonaynaa wararkeedii maamulka halka gumaysiga uga wakiilka ahaa ee Cabdi Ilay haddii ay doonayaan inay ka takhalusaan wiigii hore ay dhisaba ka soo noqday marka waxa weeyaan maxay halka ay talaabo uga qaadi waayeen dadka shacabka kacdoonkooda lama caburin karo wayna cadaatay ciidanka Ethiopia magaalooyinka way ka saareen taa wayna ogaataan magaalo dhulka ku taala Soomaaliyeed oo ciidanka Ethiopia ay ku harsan yihiin marka laga reebo laba gobol hali ahada marka laba gobol laga reebo inta kale magaalooyinka banaanka ayaa looga saaray حسن عبد إلي 20 سنة أياد كبها ودي 20 سنة أياد سعودي وما هالدين أنا وعبد إلي وحكى هالدينا شدال كنجا بين بكوشة جاي نكيد الشمبا لذيه بين بكوشة عبد إلي عادي تاجر سنة على كان هذا وطا على كيسي هراد ودين جرتين كاسات كوب بدلتي كاسو كلنا لما هالذكر أنا إذا بكفر ماشى أوكي وياه haddaba akhyaaray maanta waddankaas Ethiopia ay gumaysato ee Soomaaliyeed waxa ka socda dhibaato weyn baa ka socota deganaansho la'aan markii horeba deganaansho kama jirin nabadgelyo la'aan baa ka jirtay dhibaato ay shacabka lagu hayay maamulka hargaa ka jiray iyo ciidanka Ethiopia ayaa dhibaateyn jiray haddana shaarkii bay la soo baxeen caburis cusub iyo waxaa bilowday caga jugleyn shidaalkan la baxaya Cabdi Ilay iyo kooxdiisa way maamulan karaan way bedelan karaan laakiin baroorta orgey ka weyn waxaa la rabaa nidaam cusub oo dabaqoodiya in dalka laga dhisaa la doonayaa si shidaalka ay ugu maraan biriish uga dhigtaan Cabdi Ilayna ma wada shaqeyn karaan waayo qoladii hore la shaqeyn jiray qoladan waxay doonayaan cid ay ku adeegtaan oo kale doonayaan isaga inay qaab saas oo kala كلبا عالم كوا لقى هذا الدورة أرنتها كسوة توضع كاس أرنت سهلا معها أنا قلت تيجي تلفونك يقول دبيه كلها الله نكي أرسل هذا لي وارس مغلي ويلي أوكي هذا وعطك كحري بارك وحاف الرائع مقالة تيجي وحارس كم مغلي ويلي نوقع حبضة waad gartay Soomaa wax alla wixii Ethiopia soo gala waan ka saaraya maanta wax alla wixii afka Ethiopia ku hadlaya waa afka ka garaacayna ma soo gali karaan meesha ma soo gali karaan wax alla wixii Ethiopia dabadhil faa garawd iskaga baxa barnaamijka ka baxa wax alla wixii Ethiopia dabadhil faa qofkii Soomaaliga xalaal ah baan wada joognaa halkan qof Soomaali oo dabadhil fa no more okay markii horena ma aan ogolaan jirin ma taageerayno maamulka Cabdi Ilay iyo kooxdiisa Ethiopia ka tirsanayd
dadka shacabka ah lama caburin karayo kacdoonka si aad ogtihiin dhowr bilood buu socday wuxuu kasoo socday 5 nin kasoo socday ilaa iyo mooyaal u gaadhay waa kacdoon shacab waa wada taageereen kan calanka lagula soo baxay maanta buluuga ah ee Soomaaliyeed ayaa xaqa kana la taageeraya kii hore laftiisu wuxuu ahaa mid dulmiga lagu diidan yahay sax buu ahaa marka waa inaad ogaataan qofka Soomaaliga ah ee dulmiga diidan qof walba inuu taageero way gobolka Shabeelle waad ogtiin dhibaatadii lagu sameeyay wixii caburin lagu sameeyay wixii dadkaas way ka gilgisheen finally fikirkii halka ka yimid ilaa mooyaal tagay maanta wuxuu isu bedelay mid Soomaali weyn isu bedelay waad garateen Soomaa dhamaan marka dadka Soomaaliyeed hay taageeraan hal iskarab istaago maalin ba qof Soomaaliya meel lagu dubanaya maalin ba qof Soomaaliya meel lagu xumeynaya waxa loo baahan marka dadka Soomaaliyeed in ay ka digtoonaadaan in ay ku tala galaan haddii aad walaalka garab istaagi weydo adigana waa lagu imanaya haddaad joogto Kismaayo haddaad joogto Baraawe haddaad joogto Baydhabo Xamar haddaad joogto ilaa Djibouti waa lagu imanaya waa hubaal way wuu sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu ciidan bada oo ka Afrika ugu casirsan dhisanayo wuu sheegay in Soomaaliya iyo Itoobiya la isku darayo wuu sheegay ma qarininba marka maanta waxa loo baahan yahay kacdoonkan shacabka ee bilowday qofka Soomaaliga inuu taageero dhinaca kale waa in qofku uu taageero halganka ay ku jirto oo wanalaf oo difaac waa dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed difaac shidaalka Itoobiya waxa ka difaacayay 25 sano la soo dhaafay oo wanalaf hal mar bay isku dayeen maalinkiina waa la ogaa wixii ku dhacay haddana isku dayeen Soomaaliya waxa loo baahan yahay in albaabada loo furo jabhadda in qof kastoo Soomaaliya uu tabarucaad siiyo in qof kastoo Soomaaliya uu marti geliyo in qof kastoo Soomaaliya uu taageero ayaa loo baahan yahay soo raalli ahaado hooti war messengerka iga soo wacaya telefoon ma ka soo galay raalli ahaado anoo messengerka xidhan ma soo galay qolihii ba soo wacaya xamar baa laga soo wacaya marka raalli ahaada oo de xamar marka la joogo telefoonka aad buu saaran yahay jigjiga iyo wadankii marka waa ka xumahay telefoonkan aanan ku talagelin marka xaggalay iga soo wacayaan xaaladu way isbedbedelayaan marka halka ayay arrintu maraysaa waxaad ogaataan ood ku tala gashaan Itoobiya maamulka qabsaday iyo maamulkii jigjiga u joogay ee hore labadaasiba inay isku dhaceen oo ay arrintu ka dhex taagan tahay dadka shacabka ahna ay dhinac taagan yihiin oo ay leeyihiin dooni mayna Itoobiya calanka Itoobiya halka lagu gubay waad garateen sida aan soo sheegnay 3 xero oo ciidanka Itoobiya ayaa jigjiga laga saaray oo shacabku ay ka qabsadeen magaalada gudayna 2 xero dhagaxbuur tirada rasmiga ma hayno laakiin kacdoonku magaalada dhagaxbuur oo dhan yaani dadku way la wareegeen gabi ahaanba markii hore waxay ahayd ba xudunta kacdoonka dhagaxbuur bay iyo qabridaar arrimahaas oo dhan baa socda akhyaarta sharafta leh haddii aan u gelnahay dad inaan soo qabano qof jigjiga jooga hadduu joogo ha soo qabsado qolyaha jigjiga khadkaan furayaa waxaan soo dhaweynaynaa kaliya dadka jigjiga jooga iyo dhagaxbuur hadday soo gelayaan iyo goday hadday soo geli karaan waan soo dhaweynaynaa qof kale ma soo qabanayno qof jooga jigjiga iyo dhagaxbuur baan rabnaa iyo qabridaar hadduu joogo halkaa kusoo qor qofka jooga wadankii waan soo qabanaynaa dadka kale ma soo qabanayno qofkii jooga qabridaar dhagaxbuur iyo jigjiga halkaa kusoo qoro ha yidhaa qofku anaa ku sugan oo goobtii jooga qofkaa waan soo qabanaynaa qofu dooni ha ahaado halkaa kusoo qoro dad badan baa soo dalbaday laakiin waxaan rabnaa akhyaaray inaan ogaano xaaladdu halkay marayso qof xogaala oo jooga magaalada jigjiga ama qabridahare ama dhagaxbuur qof dalkii jooga yaan doonaynaa halkaa inuu kusoo qoro anaa jooga yidhaa waa soo qabanaynaa qofka ra'yigiisana waan u fasaxaynaa waxaan malaynayaa qof hadda ku jira si life kuma jiro oo soo geli kara dad badan baa soo dalbaday ra'yigooda dabcan ka hadlayaan laakiin waxaan doonaynaa qof le aniga ku sugan goobta ayaan doonaynaa inaan soo qabano
waayahay etoobiya ha dhacdo waa etoobiya waa gumaysi weeyaan etoobiya gumaysi wey mana yeelayno etoobiya gumaysigeeda xeerka caalamiga ogol human rightskay ku tuntaan waa wadan dadka mataqaanaa fircooniya weeye ma ogolin etoobiya sax qofka soomaaliga waxaad moodaa dhacdooyinka dhacaya soomaali bay isu soo dhaweynayaan ooha way kala maqnayd waxaad moodaa soomaali bay maanta isugu yeedhayaan nimankan waxaan codsanayaa qof jooga jigjiga dhagax buur iyo dalkii inuu soo galo lifeka aan soo qabano halkaa qofka kusoo qoro haddaad soo dalbatay ma garanayo meeshaad joogto laakiin anaa jooga ee soo qabo qofka ha soo qoro saasaan kusoo qabanaynaa haddii aan barnaamijka furo dad badan baa ku jira 1300 oo ruux baa daawanaysa hadda iyo inta dib aynaan idinkula soconin kumanaake hadda iyaguna la socda waxaan doonaynaa qof dalkii jooga oo xaaladda halkay marayso inoo sharaxaan doonaynaa waayahay shacab maanta dad gobonimo doona isu yimid halkan laba daba dhilif baa soo gashay waana ka saaray laba daba dhilif baa soo gashay laakiin shacabka soomaaliyeed ee kale waa soo dhaweynaynaa iyo xitaa oromada jecel gobonimada hadday nala joogaan iyagana welcome baan leenahay ninkii dulmi diidan oo dhan waa soo dhaweynaynaa laakiin nin u xaqlinaya gumaysiga etoobiya ma soo dhaweynayno taa waa inaad ogaataan gumaysi iyo soomaali isma geli karaan soomaalidana markii hore awoodeedii baa la kala dhantaalay in waxaa lagu xidhay koonfur ina NFD ina waxaa la Somaliland ina waxaa la geeyay Djibouti ina waxaa la dhinacan sidaa daraadeed iyada ayaa isdooranaysa baasho waad garateen waxaan jeclaan lahayn Soomaali baa ku jirta meesha that's why the Ingiriis maxaan uga hadlaynaa Soomaali baan la hadlaynaa hadda moogtay anagu laba qof oo ajnabi lama hadlayno waayahay speak English buu ku leeyahay moogtay okay anagu baa ajnabi baan la hadlaynaa Soomaali baan la hadlaynaa waayahay marka akhyaaray waan idin salaamayaa meel kastoo joogtaan waxaan jeclaan lahayn qofka inuu waxa jigjiga iyo dhagax buur ka soo galay qabridaha dadkii way mashquulsan yihiin aniga telefoonaan isku day goor weydana waco jigjiga waxaad maqlaysaa qofka ma maqlaysid kaliya waxaad maqlaysaa xabad baad maqlaysaa dhawaaqaysaa wax kale ma maqlaysid halow bugbac marka sidaa daraadeed nimankii tigraaga ahaa iyo dad badan baa jaanis helaya Ethiopia joog baa laga waayay ayar fadhiso international community waxay isku dayeen Ethiopia inay xal u raadiyaan laakiin adigoon meel lama gaadhin oo cusub hadaad nag soo tiraa way kula dagaysaa haddii waa soo sheegay haddii maamulka Abiy Ahmed Prime Minister Ethiopia haddii uu arrintan involved ku yahay oo isagu ka dambeeyo waji bay yeelanaysaa cad haddii ay ciidamada meesha joogay ee fawdada Ethiopia iyagu ay sameeyeen una ogeyna waana the case Soomaalida faham waana the case laakiin mid baan idin sheegayaa let me clear something and marty point dhulka Soomaali baa leh gaaska iyo petrolka Soomaali baa leh qof u dhawaan kara oo taaban kara oo ursan kara ma jirto oo Soomaali ahayn you understand qof aan Soomaali ahayn oo manaafacaadsanaya ma jirto ya dagaalkan hadda maanta socda saas ku socdaa way Cabdile iyo kooxdiisa iyagaba la shaqeynayeen waad garateen waayahay waan soo dhaweynayaa dhamaantiin akhyaarta sharafta leh meel kastoo dunida ka joogtaan waxaad ogaataan ood ku tala gashaan dhulkan iyo dadkan Soomaaliyeed ee 9 milyan kor u dhaafaya iyo dhulkan 9 gobol ah ee baaxadda leh khayraadka leh qof kastoo Soomaaliya ayuu u baahan yahay caawimadiisa qof kastoo Soomaaliya ayuu u baahan yahay xoreyntiisa qof kastoo Soomaaliya ayuu uga baahan yahay qalankiisa codkiisa inuu ku difaaco
saa markaan leeyahay wax cid lagu baryayaa ma jirto. nin dantiisa lagu canaantay baa adduunka ugu xun baa leeyahay. nin dantiisa lagu canaantay baa adduunka ugu xun. jigjiga waad la socotaan, magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland intay u jirto kilomitir waad la socotaan. 2 saacadood wey, waa 2 saacadood. magaalada Goday la yidhaa Beledweyne mise kilomitir bay jirtaa, waad la socotaan. waad garateen soo maaha. Shilaabo Hobyo mise u jirtaa, waad la socotaan. waxaa loo baahan yahay marka dalalka waaweyn caalamka. Brazil baa waxay difaacanaysaa interestkeeda, waxay difaacanaysaa ku yaala South Africa iyo bariga Africa iyo meelahaas intay aragtay. marka qofka Soomaaliga inta loo fadhiyo ninka ka hor taagan walaalkii ah dhibaatadaas soo socota ma inahay inuu caawiyo, halka ku caawiyo. ciidan kaagama baahna, wuxuu kaaga baahan yahay kaliya caawimaad ayuu u baahan yahay. caawimaad buu u baahan yahay ninka Soomaaliga, isaga iska celinay. marka waxaan rabnaa khiyaaray hadday joogaan haddii halkan ay soo geli karaan dad jooga magaalada Jigjiga. qof waxaan u baahannahay ku sugan Dhagaxbuur, Jigjiga, Qabri Dahar. qofkaasaan u baahannahay. laakiin waxaan malaynayaa dadku way mashquulsan yihiin. midda kale waxay sameeyeen telefoonadii maanta waad wacaysaa, markaad wacdo 1 daqiiqo ka yar markaad isla hadashaan waa laga goynayaa qof kasta oo dalkii jooga. boosadii Ethiopia operatoradii waxay sameeyeen dagaal xagga media bay qaadeen. telefoon haddaad hadda Jigjiga u dirto way goynayaan markiiba. waa qofkii kula hadlaya ayaa la jaraya. waayahay haddii aan ku celiyo Jigjiga, ciidanka Ethiopia soo galay waxay la wareegeen xarumihii maamulkii u shaqeynayay Ethiopia. markay maamulihii xarumihii Ethiopia la wareegeenna waxay islaayeen new police oo iyaga ka tirsanaaba islaayeen. kadibna waxaa dhacay shacabkii magaalada ee Soomaaliyeed inay iyaguna ka faa'iideystaan oo ay caddeeyaan shidaalka naga dooni mayno Ethiopia inay bilaqaysato, dooni mayno gumaysi cusub ee Ethiopia. ku dhiiradaan calankii Soomaaliya, calankii ONLF iyo in meel walba maanta ay la babinayo, la gubayo calankii Ethiopia. new police iyo ciidanka Ethiopia-na meelahaas ay caydsanayaan. markii hore way wada shaqeynayeen, way iska tirsanaayeen, isku mid bay ahaayeen. same hal meel mushaar ka qaataan, hal meel amarka laga siiyaa. marka marna ma taageerayno anagu nidaamka meesha ka jira, marna ma taageerayno. laakiin shacabka Soomaaliyeed in ciidamo militariya xilliga lagu qaxiyo oo la soo geliyo arrin la taageeri kara maaha. waayahay soo dhawaada dhammaantiin akhyaarta sharafta leh. dhulka Soomaali baa leh, shidaalka Soomaali baa leh, hantida Soomaali baa leh. gobonimada Soomaaliyeedna lagama baryayo gumaysiga Ethiopia. bal raalli ahaada lambarkan oo Afrika qabanaya. وعليكم السلام وكما وإساق حقين شوكتا مويالات شوكتا محاد كلا سعطا وضك وكاقو أي ومويالة أدوك سوعدي وأركنا واي تلفون كساسا لو قوينيا ويسوها هذا ينددكي ولا قوينيا ما قرأت بوصل إثيوبيا قوينيس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaa soo dhaweynaynaa in nabadgelyo laguna noolaado
gobolka oromada nabadgelyo inay soomaali kula noolaato. Ethiopia soo maaha. Ethiopia waxay la timaado waa in mataqaana hadday nabad la timaadana nabadeeda la arko iyo wada hadal, haddii ay colaad la timaadana colaadeeda in la arko wey. bariya meesha ma taal. laakiin oromada deriska ee soomaalida deriska la ah walaalnimo iyo derisnimo loo baahan yahay. taa waa inaad ogaataan very clear. shacabka Oromiya iyo Soomaali waa inay ku wada noolaadaan nabad. Oromana waxaan halkan uga baaqaynaa inayna ku milmin nidaamkan hadda Abiy Ahmed uu wato, inayna ku taageerin Oromanimo. haddii uu la yimaado Abiy Ahmed inuu Soomaali caburiyo, inuu digdig la yimaado, taas waxa weeye inay ku taageeraan waxa weeye xiriirkii labada qowmiyadood ma fiicnaanayo. marka waxaan u sheegaynaa shacabka Oromada iyo maamulkooda inay ka fogaadaan labada shacab ee deriska ah, wixii u keeni kara dhibaato inay banaanka ka joogaan way fiicnaan lahayd. guud ahaan akhyaaray xaaladdu halkaasay maraysaa. waxaad moodaa in intii hadda barnaamijkan ku jiray nus saaci wax soo kordhay ma garanayno, laakiin wararkii noogu dambeysay jigjiga khadka telefoonka shaqayn waayey. qofka markaad la hadasho hal daqiiqa markaas la hadashaan oo aadan ka maqlayn xabadda iyo qaylada, waa la goynayaa oo Ethiopian baa ka dhex hadlaya telefoonkii. operator Ethiopian ka dhex hadlaya. markaadii haddana mooyaala soo celisay. assalaamu calaykum, soo dhowo walaal. waa ku maqlaa. xaggeed joogtaa? mooyaale waa Axmed ku soo laabtay. maxaa cusub ood haysaa? waxaa cusub aan hayaa niyow ya ha waan ku maqlaa. xaguu ka socdaa dagaal? waxa shacabka lagu xasuuqaya lagu baabiinayana waa Soomaalidimo ma garat. haye marka abi ra'iisul wasaarahan cusub ee wadanka hadda haysta maamulka waxaan balaayo iyo waxaan oo dhan asaga ka dambeeyo. dadkana waxa laaynayo badana waa Oromo ma garat. ay maanta se wuxuu dhacayaa wax jigjiga war ma ka haysaan iyo meelahan kale goday wax ka dhacaya maanta? jigjigo niyo xaaladu way qasan tahay. ninkii madaxweynaha Cabdi Cumar wuuna nabad qabaa, wax hadda dhibaho gaaray ma lahan. xaguu ku sugan yahay Cabdi Ile? xaguu ku sugan yahay? wuxuu ku sugan yahay xarunta meesha laga xukumo, maamulkiisa meesha laga xukumo. saakaa la rabay in macnaha meesha inta laga soo qafaasho lasoo bixiyo, marka way suuroobi weyday. wuu nabad qabaa, meeshu ku jira. dagaal mar dhow bilowdayna hadda xabadda way socotaa ma garatay. haya xagee ka socotaa? waxay ka socotaa horta sida ogtahay ba xaaladda waagu wuxuu ku bariyay. waayahay waa nin jooga mooyaale oo na soo wacay telefoonka. dabcan qofkii afmeer doonaya telefoonka wuxuu ku qoran yahay beejka, halkaas ayuu naga soo wici karaa. halkan waxaan ka cadaynaynaa shacabka Soomaalida iyo shacabka Oromada wax dagaal oo u dhexeeya male, waa arrimo siyaasadeed. wiilkan arrintu ka dhawaajiyey ma waafaqsan. Soomaalida iyo Oromada dagaal official ah oo labada qolo ka dhexeeya ma jiro. waa arrin siyaasadeed oo ay ka tageen TPLF taa wayna ogaataan. laakiin arrimahan kale ee socda ee Abiy Ahmed ka hadlay shidaalka uu yiri boqolkiiba Soomaalidu 5 bay leedahay, wax la aqbali kara maaha. qofkii meesha ku soo qora waxaan haboonayn ha ogaada mar dambe halkan ma soo galayo. edab inuu ku fadhiyo way qofkii dhiig Ethiopia ku jiro iyo dhiig Xabashi halkan iyuuna isku soo galin. waan idin sheegaya qofkii Soomaaliya ama Oromo ah xataa Oromo badan ba hadda laga yaabo inay dhalin joogaan si asluuba qofkii inuu ku joogo. waayahay maxamed xasan cali waad dheereynaysaa aad iyo aad baad maartay waad xad gudbaysaa. marka you have to
inaad ku fadhida si asluuba loo baahan yahay. Okay, marka soo dhawaada akhyaarta sharafta leh meel kastoo joogtaan. Okay, hello hello, how can we help you? maxaa ka caawiya? hello, waayahay aad baan idin salaamaya asxaabta qaaliga ah meel kastoo joogtaan. waxaan ku baaqaynaa nabad, waxaan ku baaqaynaa wada hadal. xoog cidna laguma muquunin karayo. maamulkaas cabdi ilay iyo etoobiyadii wada socotay iyagay u taalaa, laakiin shacabka soomaaliyeed yaan la qixinin, yaan la dhibaatayn. khayraadkaas iyo karaamada soomaaliyeed iyo shidaalkeeda yaan la isku taaban. taa waa inaad ogaataan. etoobiya wixii wada socday iyagay u taalaa, ama ha islaayaan ama ha iscad. laakiin dadkaa soomaaliyeed ee dhibaatada ku jira in lasii dhibaateeyo oo loo awood sheegto, haddee waxaa li waraabada ala diritiisa loo tagaa. maanta inay arkeen baan u malaynayaa etoobiya, shacabkaas inay arkeen baan u malaynayaa maanta. marka dhammaantiin haddii la haydhaa waxaan sidaan ku baaqnayba waxaan soo qabanayaa bal jigjiga inuu inooga xog warramo oo xogaala ayaan soo qabanaynaa, iyo waddankii waxa ka dhacaya jigjiga keliya ma aha. علي وعليكم السلام. maxaa ka caawinaa? haye okay. hadda barnaamij baa ku jira live oo dad kun iyo xoogaa daawanayaan. marka haye waayahay, waad mahadsantihiin akhyaarta sharafta leh. kulley dadkiiba telefoonada soo dhacdhacaya, marka waxaa imanaya warar kala duwan. saad ogtihiin hay-adda Human Rights Watch waxay soo saartay warbixin bishii aan soo dhaafnay ee July, xadgudubka iyo xasuuqa dhulka ka dhacay inuu aada u weyn yahay. Human Rights Watch waxay soo saartay xadgudub weyn inuu halkaa ka dhacay. waad garteen soo maa? hadda marka ciidamada militariga Ethiopia oo mooryaan aan xuquuqda aadanaha waxba ka aqoonin, haddii magaalooyinka la soo geliyey shacabkuna ay iska celiyaan, maxaa diiday? waxa meesha ka jira ee maamulka ee Ethiopia ay dhisatay iyo iyagay u taalaa, laakiin baroortu way ka weyn tahay intaas. Ethiopia shidaalkay u socotaa way sheegtay nidaam cusub oo dabaqoodhiya oo kuwan nooc kale iyadoo abuuratay bay doonaysaa inay samaysato. sidaasay iyagu isugu haystaan. laakiin iyaga ahaan iyagay u taalaa. laakiin ka shacabka waxa weeyaan lama caburi karo shacabka. kacdoonka Shinil ka socday, Liibaan buu ka socday, Dhagaxbuur buu ka socday, Goday buu ka socday, Qabri Dahar buu ka socday. marka lama caburi karayo ummadda Soomaaliyeed gumaysi hadda cusub oo nooc cusub ah oo khayraadkii duulimaad ku ah. waxa weeye 5% baad leedihiin Soomaaliyeed, 5% baad shidaalkiina ku leedihiin. taa afka lagama odhan baan leenahay. afka muuna ka odhan ninkaas Soomaaliya gar afka muuna ka odhan taas.
afayaankii jabhaddana waad dhegaysanayseen shalay uu ka hadlay caddaani si cad oo clear u sheegay. safiya waan ku salaamay, aad baan ku salaamayaa. waxaan doonaynaa inaan hubeeye soo qabanayaa intaan barnaamij ku jiray wararkii kolley si uu noola socodsiiyo isagaa isha ku hayay. wuxuu ka tirsan yahay bahda afmeer. hubeeye soo qabso, isaga ayaan insha allah barnaamijkeena kusoo xidhaynaa. innaga baaqeena ugu dambeeya waxaa weeye shacabka oromiya iyo shacabka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay peace, nabad baa loo baahan yahay. nabad ayaa loo baahan yahay labada shacab dhexdooda. marna taas yaan la ogolaanin in halkaa laga abuuro isku dhac. waxaa loo baahan yahay nabad. soomaa maamulkan Addis Ababa soomaa ee Ethiopia magaceeda wata shidaalka ay yireen 5% baad leedihiin baa looga fadhiyaa meesha. nin baa waxaa la yidhi magaalada Qabri Dahar ayuu 80meeyadii ayuu ku gashaday baa la yidhi tobacco oo qolyo jabhado meesha tagay ahaa. tobacco ama buur afka la geliya lagama yaqaan. nin baa ku arkay magaalada Qabri Dahar isagoo dhex socda, markaasuu yidhi waxa afka kugu jira waa maxay? markaasuu yidhi waa tobacco. meeshaad ku tufi lahayd baa loo baahan yahay buuri. marka hadda waxaa loo baahan yahay Abiy Ahmed 5% buu yidhi meeshu shidaalkaas uu marin lahaa iyo sidii uu ku cuni lahaa iyo inuu taabto ayaa looga fadhiyaa. waad garatee soo ma? may oromada waxaan ugu baaqaynaa nabad baan ugu baaqaynaa. nabad waa ka orom ahaan, laakiin iyana ku dagmin ninkan Ethiopia uu ra'iisul wasaare u yahay. fikirkii Abyssinia Ethiopia inuu hadduu qaatay ma caddayn karo. hadduu qaatay fikirkii Abiy Ahmed Abyssinia Tigray iyo Amhara hadduu qaatay, oromo banaanka ha ka istaagaan. waa dad darisaan nahay iyagu clear. ninkaas sida Soomaalidu ay cabdilay banaanka uga joogaan yaa ha ka istaagaan banaanka. waad garatee soo ma? oromo waxaa leedahay haddii ninkan uu noqdo nin wada dimuqraadiyad, sinaansho, wada hadal, cadaalad hadduu noqdo waa sax. haddii uu laakiin leeyahay shidaalka Soomaaliyeed gobolka ku jira 5% bay Soomaalidu leedahay, inta kale Ethiopia qaadanaysa. oromo yeena ku sirmin meesha waxa ka soo socda, faraha la iskaga gubanaya. oromo banaanka ha ka istaagaan. Soomaalida fahmi isaga iyo Ethiopiadiisa uu hogaamiyaha u yahay, markaas ayaynu arki doonaa. waayahay waayo wararku way badan yihiin. ninkii hubeeye inuu kusoo noqdaa ficnaan lahayd. hubeeye kusoo noqo. saa u qaba hubeeye xag telefoonka gudub saa u qaba balac. waayahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. aad soo dhawow waan ku salaamayaa mudane. maadaama aad nooga dhowdahay wadankii oo geeska Afrika joogto, maxaa ugu dambeeyay oo ka dhacaya wadankii? xamse run ahaantii wadankii saaka gelinkii hore aad bay xaaladdu maartay ay u qasnayd. waxaa subaxii gelinkii hore waxaa lagu soo toosay iyadoo madaxtooyada ay ciidamada federaalku ay weerar ku soo qaadeen, isweerkana ay ka hayaan. marka ka bacdi waxaa dhacay in maartay shacabkii ay isu soo baxaan, ay mudaharaad iyo dhagaxaan ay bilaabaan. dhibaatooyin iyo waxaa halkaa aad uga dhacay maartay mudaharaad aad u ballaaran. marka dhibaatadu halkaas aad uguma yaro run ahaantii. meelo la gubayna waa la sheegayaa, kaniisad waa la gubay, bangiya la dhacay. marka dadku mudaharaadkii markii dambe ciidamada dhagaxaan ayaa meesha lagaga saaray.
shacabkii oo dhagaxaanta gurtay oo aad ugu mudaharaaday baa magaalada aadu ay dib uga baxeen balse laakiin weli xabaddu way ka dhacaysaa magaalada Jigjiga run ahaantii meelo fara badanna marka run ahaantii waxay u muuqataa weerar cad oo maadaama oo qaab kale oo ay u wajahaan ay maaragtay u suuroobi weyday inay hubka new police ay ka dhigaan kolka horena ay ka cabsi qabeen marka hadda waxaa si toos ah uga socota magaalada Jigjiga iyo dhammaanba deegaanka maaragtay dagaal foolka foola oo u dhaxeeya ciidamada new police-ka iyo dowladda federaalka dagaalku ma new police-ka wuxuu dhaxeeyaa qoladan kale ee xabashida dagaalku new police-ka iyo qolada xabashada uu dagaalku si toos ah uga dhaxeeya iyaga rasaasta isweydaarsanaya marka shacabkii adu mudaharaadkii magaalada waa la iskala dhaxbaxay laakiin weli xabaddu way socotaa welina laguma kala bixin marka qoladii new police waxaan ogeynay ciidanka Itoobiya ka tirsanaayeen maxay isbedelay run ahaantii new police-ka ciidanka Itoobiya ka tirsanaayeen iyaga mushaarka siinayay iyaga sameeyay markii horena xaaladda siyaasadeed ee guud ahaan wadanka ka taagan kadib markii uu isbedel uu wadanka uu ka dhacay waxa meesha ka socda run ahaantii isqabqabsi iyo is-eedayn iyo adiga maaragtay wadanka dagaalka ka dhacay iyo dhibaatooyinka ka dambeeyay marka maanta haddii la rabo in maaragtay xukuumad la rido ama xil laga qaado dadka deegaankii ay la soo baxeen calankii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya iyaga oo ku dhawaaqaya ma doonayno inaan cid kale u adeegno ama aan dabadhilif u ahaano marka iyaga oo kuwa ka shaki qaba in ay maaragtay kolka horeba ay dagaal ay ka bilaawdaan ayay saaka waa berigii ay ku kaleen xeryaha maaragtay dhammaan goobaha waaweyn ciidamada militarigu cid ay amar ka qaateenna weli lama soo xaqiijinin marka dagaalku wuxuu ka bilowday run ahaantii inay ka cabsi qabaan inay ku dhawaaqaan qolyaha maaragtay meesha joogaa inay yidhaahdeen gooni baan u goosanay marka markii ay maqleen cabdi ilay kooxdiisa inay qorsheynayaan inay leeyihiin Itoobiya waanu ka goonay baa weerarka la soo qaaday taasay ka dhigan tahay dabcan saasay arrintu tahay weeyaan marka ma la odhan karaa weerarka way ku guulaysteen xukuumadda Abiy Ahmed mise way ku guuldareyseen run ahaantii weerarkaas aad bay ugu fashilan yihiin dhanka qaynuunka haddii la fiiriyo iyo dhanka maaragtay shacabka iyaga oon cidna u danaynin way ku guuldaraysteen hamigii iyo rabitaankii ay rabeen in maaragtay qasab dadka lagu muquuniyo rabitaankoodana lagu hor istaago marka cid qasbi kartaa ma jirto iyagoo afka laga leeyahay haddana weerar in la isku soo qaado aad iyo aad bay u qaabdaran tahay waxaa ka socotay waan waa la ogyahay inay dhibaato meesha ka socotay in badan balse laakiin maanta looma baahna in shacabka dhibaato tii hore kasii badan la geliyo marka run ahaantii maanta waxaa weeyaan way fashilan tahay xukuumadda Abiy Ahmed haddii ay arrintaas iyadu ay amarkaa bixisay waayahay ciidanka Itoobiya xarumihii ay ka qabsadeen maamulkii iyaga u shaqeynaya hoos tagayay isla iyaga dhexdooda ay ku soo duuleen xarumihii may haystaan mise waa laga saaray run ahaantii ciidanka ugu dambeyntii markaan la xiriiray waxaa la sheegay in xerada garab cas ay ku laabteen ciidamadii oo magaalada laga saaray intii kalena ay maaragtay guriga madaxtooyada kooxda Cabdiiley ay gaarka ay ka hayaan halkaana ay xabad rasaastu aad ay uga dhaxaysay laakiin weli wax ku dhibaatooday meesha iyo wax ka dhacay oo faahfaahsan weli lagama soo sheegin meesha barukaada hadda lambar baa soo wacay wadankii ukaadi أحمد أوكادي هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير حقيقة سوى عيسى حلق كوعلي مركل كوعلي waayo waad maqlaysaa waa shacabkii weeye waayahay sidee wuxuu socdaa xaaladdu waa sidee hadda
هيا والله لو مركي ورا تدبينا باتنك سنة دقالكم وقصوا عدين ما درتي دينا ورا ما سكولة دقالين دينا ما درتي عن فرقية ما درتي دون عربة دينا وحا وصلا نجيت دينا عنا عرما وبرضو دميلي لدي يا نجيت مقرن هيا markaas tii oo colaada ay Ethiopia maanta ay maadartay intii hore baan ugu sijitay maanta xoog yeelatay maadartay Ethiopia ay maadartay oo Oromo waliba mas'uul ka noqotay xasuuq iyo waxa wado anaguna maanta saacada la jooga hadda maalin weyn la soo waday maadartay waxaan ku soconaaba wadiga waxaan ka wallahi baan kuma sheegay handaad garanaysa hawaas limaad baday ما أقان ركاس أنا هي eraya hawaas ma maqashay heesta ma maqashay سيفي عن هري هواس إنه هلي ما هو بتاع إلا لما هو بتاع عنك والله واحد على صور لك أبدا هو 7 كيلومتر بنجرى الصومالي الجعالي على الصومالي السبب هذه اللي هم ودي مقرن صح الحمد لله ما أنت معنا كسر على المجد تدري ما أنت إنك صومالي كوي الرأي أو لا بقوم يدودو يتوب يقول بدن أن برتميه وجرو صح صح iyo anfartii oo maadartay deeyadiina maadartay dawladeedii iyo mudamadeedii iyo gobolkeedii oo dhow wax walba haysato alxamdulillah ma si fiican ma iska caabina wallahi taariikhdeena waa taariikhdeena anagu de furun adag baan meesha Soomaalida ee laga taaganahay Addis Ababa waxaan u jiraa 220 kilomitir Jijigana waxaan u jiraa 400 iyo xogaa kilomitir baan u joognaa waa barbaarta city waa rag adag baatihiin Soomaalinimada ku dhimanaya annagu Soomaalinimaan ku dhimanahay Soomaalidana Allah midiyalana insha Allah de waqtigeena sugina kullinba maanta la taagan yahay maadartay de wixii jira waan isla socodsiinayna annagu waxaan doonaynaa un de maadartay Soomaali hort kullinba de maadartay waxaan xalay dibadda la wada bariyay 400 oo rag dhalinyaro ah ayaa dibadda bartay xaggeena waxa dhawaaqu ku dhawaajiyay Abiy Ahmed oo diiday 5% ee maadartay nacam de maadartay shaaska ee dawladdeegan ka soo baxay oo 5% bay ku leeyihiin arrintaasi waa laga carooday dibadda la wada bariyay xalay moogtay gobolka city dadka joogo dhan banaanka bariyeen gaar ahaan meeshan ku sheego magaalada Hardiin intaan maqashid waa meel taariikhi ah waxaan u joognaa kaabadan hawaash 7 kilomitir baan wallahi u joognaa ilaa 12 kilomitir 7 kilomitir baan u joognaa 5 daqiiqo gudaheedana waan ku qaban karaa moogtay sideed u aragtaa in shidaalkaaga iyo kheyraadkaaga 5% kaliya laga siiyo taasi waa hal nin oo Soomaali intuu harayo taasi waa loo dhimanayaa taasi waa taxalaba dibadda la barso moogtay taasi waa waxaan dhici karin anagu Ethiopia 100% saaska Soomaali baa iska leh Ethiopia anagu way waxaan kuri in badan bay shacabkeena leeshay Ethiopia magdaba baan ka sugaynaa waxayna la yeelatay dayo marka ma ogolaanaysaan in Ethiopia shidaalkiina ay qaadato Ethiopia inay qaadato shaysa inay nala isticmaasho maba ogolin handaan nahay shacabka magaalada Hardiin iyo magaalada Khato guud ahaan baad u hadlaysaa hadda Soomaa guud ahaan baan u hadlayaa marka Soomaalinimada waxaad u aragtaa inaad maamulkan hadda qabsaday inuu wax fiican soo wado mise inuu gumaysi soo wado labadan kala aragtaa kan hadda hayso gumaysi ka daran buu wataa maanta jooga ma garanaysaa صح oo kii mangistu kaba daran buu haystaa maanta dhulbalaasi wuxuu soo saaray maapti oo le maadartay annagu Ethiopia xal waxa la leenahay Yemen ilaa Somaliland badda u dhaxaysa Gulf of Aden haye kaartada haddan ku soo tuuray kaartada bay soo saarteen xaggan waxa lagu leeyahay ogaadeen area maba jirto aaminsan yahay ninkan leeyahay Dr. Abiy Ahmed uba dhaafayba wuxuu ku leeyahay wallahi bal haddan ku soo tuuray maaptiga 3 bilood ka hor iyo Jawaar Maxamed sameeyay hasa haatee hadowna waxaan kula soo hadlaysiinaa gudoomiyaha magaalada Hardiin oo kula soo hadlaysiinaa gudoomiyaha magaalada Khatar oo kula soo hadlaysiinaa markaas heegan baa leeyahay waxaan ku leeyahay in caradeena iyo calankeena iyo dalkeena si aan difaacan lahayn baan diyaar u ahay anagu alxamdulillah 27 ka sano baad maadartay Ethiopia maadartay kulleen dagaaluma kulleen nalama
laakiin se hadda maanta aad oo fiicanta waa waqti ee lagu maadaragtay mid laga noqon lahaa ayaa la taagan yahay annaguna maanta waa maadaragtay alxamdulilah baan leena magaran aad iyo aad waxaa ku daawanaya dad aad u fara badan baa ku daawanaya oo 1,100 baa hadda ku jirta oo qofaa ku dhegeysanaysa sax markaas waa tahay maadaragtay hadhownan kula soo dejinaya gudoomiyaha labada gudoomiye kula soo dejinaya annagu etoobiyadan hadday faragelis ugu samayso xilaa shidaalkeennii maadaragtay ku socoto annagu waxaan ku leeyahay waan iska dhabaynaa dee maadaragtay wixii media anigu nala socodsiiyaa nalala socdaa baan leenahay haddaan nahay magaalada hardiin iyo shacabka soomaaliyeed ee etoobiya oo dhan anagu saacadda laga bilaabo mabanihi maadaragtay kilil waxaan nahay qaran soomaaliyeed maad ku dhawaaqdeen waan ku dhawaaqay anigaa ku dhawaaqay kowe marka hadhowna waxaan kula hadsiinayaa rag mas-uula iyo odayaal waxaan adu meeshan kuu sheegayana si fiican la soco meeshan waa magaceed waa hardiin waa hargowlaha waa meel furan adag ee ku taalla ee soomaalidu maanta ee annaga 7 sano waan ku dhimanay waan gaarsiinay soomaaliyey u gurmadaya baa leenahay maadaragtay anaguna hawaas herar iyo hawaasti iyaa soo dhawowday insha allah khayr baan noqonaysa saawaan sugna waa waayahay aad ayaad u mahadsan tahay insha allah gudoomiyaasha nagu soo xidh aad baan ku sugaynaa insha allah telefoonku wuu furan yahay mar walba waayahay waa barbaartii city ama dhalinyaradii gobolka city shineyle aan idhaaho rag adag ba halkaa joogaan halka ciisaa waa niman adag wey waa maaragtay waan soo dhaweynaynaa waa soomaali asala weeyaan waayahay aad ayaad u mahadsantiin akhyaarta sharafta leh barnaamijkeena waa soo koobaynaa wixii soo kordha dib ayaan ka wada socon doonaa haddii lahaydaa aad ayaad u mahadsantihiin akhyaarta sharafta leh finally message shacabka soomaaliyeed iyo shacabka oromadu waa dad derisa waxaan ugu baaqaynaa nabad inay ku wada noolaadaan maamulka abiy axmed tallaabooyinkan uu qaadayo uu soomaalida kula dhaqmayo shacabka oromadu ha ka fogaadaan waayahay waan sheegnay oo waxaan idhi qofka jooga waddankii magaalo ka mida lifeka ku jira ha soo qabsadaan nidhi marka waxaan filayaa khadka ayaa maadaama telefoonada hadda ay gogoynayaan haddaba waan wici karnaa way goynayaan maaragtay xabashi baa soo dhexgelaya telefoonka marka hal daqiiqa qof kula hadla xabashi baa ka dhex hadlaya haddana way goynayaan ma garteen laakiin ninkan hadda ay soo wacayeen gobolka kasoo hadlayay shineyle ma ayso kasoo hadlayay whatsappka ayuu kasoo hadlayay marka waa maaragtay aad uu fiican yahay
هذا وانا قال هذا كسي لو soo qabtay laakiin ra'yiga waxa doonaynaa qof jooga wadankii halka inuu ku soo qoro ila jigjigaan jooga dhagax buur baan jooga qabri daharan jooga qof sida u hadlayaan doonaynaa oo xogogaal laakiin dad banaanka jooga ra'yigooda ka hadlaya barnaamijkeena hadda kuma salaysanayn laakiin waa soo noqon doonaa insha Allah wararku way soo badanayaan marka taa wanaad la socotaan waxaan ku baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Oromada inay nabad ku wada noolaadaan shacabka Oromiya inaynan Abiy Ahmed ku taageerin talaabooyinka gardarrada ah sida uu leeyahay shidaalka Soomaalidu 5 bay leeyihiin percentage shacabka Oromadu inay ka fogaadaan waa dad darisa waxa weeye Soomaalida iyo Oromadu daris bay ahaanayaan waxa loo baahan yahay walaalnimo iyo darisnimo laakiin ninka Ethiopia hogaamiya Ethiopia marka policy-geeda haduu qaatay Oromo inay ka joogaan banaanka taasaan ku baaqaynaa Soomaalidana waxaan ugu baaqaynaa Oromada inay ka fogaadaan wax kasta oo dhibaato ka keenaya labada ummadood dhexdooda inay ka fogaadaan ta finally message aan dirayna kaawi Ethiopia Sooma aha Ethiopia waynu isnaqaanaa waa gumaysi way Ethiopia Soomaalidana la isma bariyahayo meel baa Ethiopia la iska saaraya meel baa la saaraya cad Ethiopia ma jirto Ethiopia way kala qaybsan tahay way burbursan tahay ciidamadeedii waa artay goday maanta waa laga saaray meelo fara badan baa laga saaray dhagax buur jigjiga waad aragtaa waxa ka dhacaya waxaas ma aha new police iyagu way wada shaqeynayaan waa shacabkii marka waad maasantiin haddii la yiraahdo si hadda wararku ay nagu soo gaaraan baa si degdeg ugu soo noqonaynaa waxaan ku baaqaynaa nabad iyo wada noolaansho Soomaalida iyo Oromada ayaan ku baaqaynaa nabad iyo wada noolaansho ayaan ku baaqaynaa tan Ethiopia xukuumadeeda ah international community iyo caalamka iyo human rights waa la arkaa Abiy Ahmed wuxuu lahaa waxaana ay dimuqraadiyad baa wadaa human rights ka ayaa taageeraya laakiin xaaladda halkaas ayay maraysaa marka waa yahay admaasantii waan ka baxayaa khayr baan idinka tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guul iyo gobonimo marna ayaan la yeelin gumaysiga Ethiopia inuu bililqaysa hantideena